sharaftii iyo karaamadii in la soo celiyo oo wadaniyadii ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo saas ayuu mowduucu ku saabsan yahay sida muuqata runtii akhyaar fara badan waa ka hadashay oo waaye aragaho muddo badan Soomaaliya horay iyo gadaalba ka og aniga waxaan rabaa horta arinta wadaniyada inaan wax yar ka iraahdo waxaad ogtiin wadaniyada Soomaaliya horta sideeda marka hore waxyaabaha Ilaahay ku maneestay waxa kamida islaamka waxa kamida dhulkan ballaaran oo Ilaahay uu nasiiyo barwaaqada leh waxyaabahaas marka waxay sheegayaan inaan anaga nahay dad oo ma taqaana taajira laakiin wax ka halaysan yihiin marka waxaan rabaa nabi Muuse markii uu ninkii danyuuska ahaa ka shifay ee uu magaalada Madyan aadeena ee Shucayb uu u tagiyay ee gabadha uu siiyay ee 10 sano ama 8 sano midood uu nii dhamay ay ballan ku galeen hawshii madashi markay u dhamaatay waxa uu ku laabta Masar oo meeshii uu ka soo cararaa oo u laabta waxa ku kalifaana maxay yihiin wadaniyad waay quraanka marka wadaniyad markii laga raadiyo wuxuu leeyahay falamma qadaa Muusa al-ajala وصار بأهله أهل كيسي وقلابت ما هي رواس عدا مدينة وكتجا مصر وصعدا مال حاسو مرا يونا بني مديهلا هسأت وجددي سوحي هذا إنه ودن كيسي أو كلابت يدل قد له عدو أو جوج والدنيا دمرك واحد كينا يو قرآن كان لو قد لي شكر وحواي أو دليل إنه نبي موسى ماهي عدو كيسي أو جوجي inuu dib ugu laabto asoo wadaniyada ka turjumay hada culimo waxa jirta ku dhahay koomkan ilaaha iskale adiga maan ogeyn koomka in ilaahay iska leeyahay wadaniyada bisay ka marin habaabinaya maxaa yeelay waxay ku hilmaansiihayaan inaad Soomaaliya tahay waxay ku leeyihiin adiga Mareykanka iyo xilaa ka saaran iyo Ingiriiska iyo adiga howlahaas inaad ka dagaashaa laga rabaa warnimantiisi wax ka qaban ma meel kale aada marka waxa waaye oo hadda aad joogtiin marka waxana la ka rabo qabiilka waxa waaye shacbiga looga gudbaa sidiisa qabiilka ilaaha sameeyo laakiin wax adiga sameys ka raba ma adiga waxa laga rabaa marka inaad wax sameeysaa laga rabaa waxa laga rabaa marka waxa waaye ummadii qabaa'ilka heeday inaad shucuub ka dhigto shacbi ka dhigto institutions u sameeyso aad halkaas dawlad ka naqato laakiin hadii wixii Ilaahay sameeyay ana sameeyay aad dhahdo ma ogtaa beenaad sheegay waxba ma qabane sidaas darteed marka waxaana la ka rabaa in aan anagu horta ogaano waxaana la ka rabo inay yihiin inaan anaga dawlad naqano oo institution keenana aan ka shaqeyno ummadeennana aan mideyno sharafya karaamana aan ku noolaan sharafya karaama hadda waa nugu yar yihiin ogow hal qof ay ka soo baxda dhiganso waxa dhan dhuuniyay u badan yihiin qof kasta fiiri waxaad fiiraysiin qudbooyinka hadda ma ogtaa waxaa soo YouTube iyo soo kordhay ma ogtaa cid kasto waranta ma haasay ku jirtaa haddaad sharafya karaama ku aragtiin anaad ii qabsaysi hadday jirtana hal waay waa laga tegay maxaa hadda ku jirnaa ma taqaan waxaan leenahay beeshu waxay keenay qabiilku wuxuu ku leeyahay war meeshii aan ku diranay xad ka keent dal burburay oo raba inaad adiga inta u sabarto maal geliso waxay ku leeyihiin xad ka soo qabsatay xad ka soo goysay
maxaad ma taqaanaa adiga nooga keenta yaa u maqan hadduu nin walba yiraa aniga cadkaygan ka goosaa taas waayo horta midda annagana dilad waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka runtii maadaama aan microfonka haysta welcome wasiir aan dhaha waxaa jira marka annaga hadda cilmi baarista horta waxna martiyaad ku taa waxna adigaa marti lagugu yahay annaga hadda waxa aanan marti ku ahayn islaamka waay quraankuna wuxuu leeyahay asigaa cilmiga wuxuu leeyahay nabi maxamed wala in ittabacta ahwaa'ahum min ba'di ma jaa'aka min al-ilmi innaka idan la min adh-dhalimin asigaa la yiri haddaad cilmigan aan ku siiyo kadib aad hawadaada raacdo dhalimaad naqayha nabi maxamed leeyahay quraanki marka hadii cilmi la yiri annaan cilmi baadis raadsayno midaanan marti ku ahayn inaan ku raadsano xadiida ilaa maadigina waa naqaane wallahi billahi hadii aan anagu cilmigeena quraanka ka dhex raadsano ee aan sharafyo karaama ku doonano oo aanan argagixisada qaybteeda u leexan ee midda runta aan ku shaqeyno wallahi billahi dadku waa naxayaan maxaa yeelay wax ilaahay oo wadiyo waaye midaan hadda si sax ah ugu dhaqanto waxa waaye xaq waaye wax meel looga leexan kara ma jirto marka walaalayaalo waxaan la sheekaystay wasiir oo Ugandaysa iyo taliye ciidanka oo Ugandaysa maaliman wafdi aan kamid ahaayaan inta tagnay wuxuu yiri 500 aan ka dhigno yiri annaga xildhibaanadeena koodii hore markii ay jabhadii LRA-du ay dalka qabsatay markii aan ka dhignay horta kow wixii waxa lay karaan 500 isugu keeno oo qoran la ordayay oo dhibaato weedo dalka kala goyn kara markaan soo aroorinay waxaan ku heshiino yiri qof kasta $1 inay cunto oo lacagtan lagu dheelayo dalka la geliyo ninku taajir haduu yahay ma cuni kartida la yiri ninka kula dhashay oo walaalka wuxuu cunaan dhahnay yiri maxaa yeelay waa la kala masayra adigu hadaad dherganta ninkan madluun adoo baciil ku qabiyahay adiga $1 markaa cunno sanadka dambe labaan ka dhigno maalintii aan 4 gaarsiino 4 sano hore aan sanad walba $1 kordhiyeen waxay noqoto wiri dadka inay marka soo kacaan lacagta ay aruurto dalkii oo markaas naqdo dal isku jaada oo aan quraayaan ilaa hada adiga marka aad u mahadsantiin ma raba inaan idin ku dheereeyo waxaan ku soo gebengebeeyay Soomaaliya ha noolaato ha israacdo cadawgeedu ha jabo runtii annaga hadda xisbiyaan sameeyna annaga hadda natiijo in hawaay diiwaan gelintii ku meel gaarka ahaan qaadan maxaan uga jeednaa inaan u sahmino Soomaaliya qabiilka si looga gudbaa la rabaa ma ogtaa siyaasadda qabiilaha heeste inaan ka qaadno oo meel cidla oo ku soo dhaco oo siyaasadda xisbi loo doonto oo qofku markaas adoogi oo lacagta sii haayay inuuna wax u tarayno la mid yahay gabadha uu dhalay asugu isku cod yihiin ma hasan annaga u wadna gacanna la ku siiyo hala taageero qabiilkana taasaan uga gudbaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh